السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan dhageystayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena islaamka nolosha. waxaan ku eegi doonaa barnaamijkeena mowduuc ku saabsan ahkaamta meherka iyo xafladda arooska. waxaana marti ku ah barnaamijkeena Sheekh Salaad Cantoob Xasan oo kamid ah culimada Soomaaliyeed. ugu horeyn aan ku soo dhaweeyay barnaamijkeena islaamka nolosha Sheekh Salaad Cantoob Xasan si uu dahfur inoogu dhigo darsi ku saabsan barnaamijkeena oo ahaa ahkaamta meherka iyo xafladda arooska. Sheekh Salaad ku soo dhawow. شكرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله إنه نعموين فربضان أو إكمتها نعمة الإسلام والإيمان. موضوعين وحكوسها بسيها هي أحكام المهر. أحكامتا يعني مهر كأولي هي ينوعيد وقيب سميو. sidoo kale waxaan uga hadli doonaa waliimatul cursi waxa loo yaqaano xafladda loogu tala galay oo yacni damaashaadka loo sameynayo oo ah munaasabadda arooska ayaynu uga hadli doonaa insha Allahu tacaala. ugu horeyn maharka markaynu ka hormarno gabadha maharka la siinayo, maharka horta sharciyan waxa loo yaqaano waa maxay? مهرك هو اسم لمال واجب للمرأة على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أو موت. مهر وحا ليرهدا مال كو واجبيو زوجك هوين ايدنا واجبيو مال بانين كو واجبيو وحونا واجبيا هويني سدح سبب مدود. هويني دي وو قورسدي نكاح ayuu yacni la galay ama wuxuu ku wadiyayuu ugu galmooday si shubha ah oo haweenaydiisi buu u malaynaya ama nikaax faasida oo aan ansixin ayuu ugu galmooday ama haweenaydii markuu guursaday uu ka geeriyooday asagoon la kulmin. maalka u waajibayo haweenaydaas baa mahar la yidhaahdaa. maharka marka wuxuu leeyahay magacyo fara badan. sadaaq waa la yidhaahdaa, nixla ayaa lagu magacaabaa, sidoo kale waxaa la yidhaahdaa fariida, ajar, dawl, magacyo fara badan oo culimmadu ay gaarsiiyeen ilaa 11 ayuu maharka iska leeyahay. marka shayga haddii magacyadiisu ay bataan waxaa la yidhaahdaa shaygaa sharaftiisa buu tusinayaa. marka magacyo ilaa 11 ay culimmada gaarsiiyeen ayuu maharka iska leeyahay. الأصل فيه قبل الإجماع. مهرك محا أصلوه علماء انتيسان كو إجماعين. وحا أصلوه قولك إلهي سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إلهي وحي سبحانه وتعالى هوانك السيئة وحي مهر أهان أد أغشيكتين قعنتك ساربو يري الله سبحانه وتعالى. sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa aatuuhunna ujuurahunna. haweenka waxaad siisaan maharkii aad u magacowdeen. waxaa kaloo u daliila qowlkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ruux muriidu tasawuj ah isagoo la hadlayo wuxuu yidhi iltamis walow khaataman min xadiid. raadi oo gabadhii waxaad mahar uga dhigi laheed orodoo dalaboo raadi faraatiba allaha ka dhigee. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa uu saxaabiga ku baraarujinayaa haweenaydu inay xaq leedahay, xaqaas oo ah maharka. marka nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iltamis walow khaataman min xadiid. marka nusuustaas baa u daliil ah maharka qabla alijmaac intaysan culimmada ku ijmaacin. aayaadka aynu soo sheegnay iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa daliil u ah. gabadha haddii la nikaaxo oo mahar aan la sheegin guurku waa iska ansaxayaa markii 3 mas'alo laga reebo. gabadhii waa la xidhay oo nikaax baa ku dhacay, maharkeedina lama sheegin, inta badan wuu ansaxayaa 3 mas'alo markii laga reebo.
gabadhii haddii la nikaaxiyo ee maharkii la xusi waayo hadhow ninkeedii iyo ayada waxay isugu raalli naqdaan oo mahar ayay yeelanaysaa haddii uu u sii magacaabo, ama waxay yeelanaysaa mahrulmathal, ama xaakimkiyaa qadarayo ama weligeedii baa qadarayo. waddadaa baa la marsiinayaa. saddexda mas'alo oo in maharka la sheego ay waajib tahay, mas'alada ugu horraysa waxay tahay haddii laysku darayo laba qof oo arrimahooda la maamulayo. tusaale, laba qof oo waalan baa laysku xirayaa. sawjkii waa majnuun, gabadhina waa majnuuno. laba qof oo waalan maslaxada laga raadiyey in laysku xiro baa la doonayaa. maharkii in la sheego waa waajib markaas. maharkii in la sheego waajib buu noqonayaa. mas'alada labaadna waxay tahay sawjadii haddii ay tahay jaa'isata tasarruf, yacni mid tasarrufkeeda uu bannaan yahay oo gabar yacnii idankeeda yacni la aqbali karo weeyaan. weligeeda haddii ay u oggolaato inuu sawjeeyo asagoo aan bandhigayn ee yacni maharkeeda sheegayo, sawjkana ay kula heshiiso wax mahrumathalkeeda ka badan, dumarka ayada la mida waxa lagu nikaaxiyo oo lagu mehersado wax ka badan haddii ay sawjkii ama ninkii kula heshiiso, maharkii in caqadka lagu magacaabo ayaa waajib noqonayo oo in la xuso oo meesha lagu sheego. masalada saddexaadna waxay tahay sawjka haddii uu yahay ruux aan tasarrufkiisa soconayn. tusaale ahaan, sawjkii waa qof majnuun ah, waxaana lagu xirayaa haweeney ayada aan majnuuno ahayn oo wanaagsan oo caqligeeda qabta, ayadana maharkii in la xuso ayaa waajib noqonayso. marka saddexdaas mas'ale ayaa la yidhaahdaa maharka in la sheego baa waajib ah. aynu u gudubna marka miqdaaru sadaaq, maharka qadarkiisa haddii aynu fiirinno. qadarka maharka sunnadu waxay tahay maharka inuusan ka yarayn 10 dirham. haddii laga sii yareeyo wuxuu noqonayaa karaahi. waxaa fiican marka maharka inuusan ka badnayn maharkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. xaasaskii nabiga sala allaahu calayhi wasalam wixii meher ahaan loo siiyey iyo gabdhihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaan laga kordhinin. maxaa yeelay cid ka fadli badan xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo gabdhihii rasuulka sala allaahu calayhi wasalama ma jirto. idan marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa maharkoodu waxay ahaayeen 500 dirham ayuu nabiga ka dhigay sala allaahu calayhi wasalam. gabdhihiisana mahar waxaa looga dhigay 480 dirham baa looga dhigay. waa meel isu dhow marka. 500 oo dirham waxay u dhigantaa 140 riyaal ayay u dhigantaa. 400 oo dirhamna waxay u dhigmaysaa 110 riyaal ayay u dhigantaa. marka sadaaqu waxa maharka laga dhigayo nuuca uu u yaalla haddii aynu fiirinno, waxay culimmadu yidhaahdaan qaacida ahaan kullu maa saxa an yakuuna hamanan saxa an yakuuna mahran wa in qalla. waxay dhaheen culimmada wax walba oo ay ansixi karto in wax lagu iibsado oo lacag laga dhigi karo waxaa ansixaysa inuu mahar noqdo. shaygiiba aad wax ku iibsan karto mahar waa laga dhigi karaa. maharku marka laba ayuu u qaybsamaa, almahrulmusammaa iyo mahrulmithli. labadaa ayaa loo kala qaadaa. mahrulmusammaa waxaa la yidhaahdaa maa summiya fi lcaqdi aw bacdahu bitaraadi. wixii caqadka lagu dhex magacaabay gabadha markii la nikaaxinayo, gabadha iyo wiilka wixii ay isku afgartaan kaasaa la yidhaahdaa almahrulmusammaa. waa mahar lagu magacaabay oo lagu dhex xusay guurkii dhexdiisa. kaas marka mahrulmusammaa baa la yidhaahdaaho sawjkii wuu ku waajibayaa. xilliga uu ku waajibayana waynu arki doonnaa. maharka labaadna waxaa la yidhaahdaa mahrulmithli. mahrulmathalka wuxuu yahay haweenaydii waa la nikaaxiyey iyadoo aanan wax mehera loo sheegin. waxay yeelanaysaa marka haddii ninkeeda uu jimaaco galmood ku sameeyo ama uu ka geeriyoodo, waxay yeelanaysaa haweenka ayada la mida wixii mahar ahaan ay u qaataan. mahrulmithli baa la yidhaahdaa. hagaag, axwaalu wujuubi almahri almusammaa. waxaynu dhahnay maharka laba buu u qaybsamayaa.
mahar oo la yidhaahdo almahru lmusamaa iyo mahar lagu magacaabo almahru lmithli. mahrulmusamaa marka xaaladaha uu waajibi karo sawjka markii haweenaydiisa uu u galmoodo guurkii markuu dhaco kadib hadduu haweenaydii la aqalgalo ee uu galmood ama jimaac ku sameeyo maharkii caqadka lagu dhex magacaabay wuu waajibayaa. midda labaad, labada sawj mid ka mida haddii uu geeriyoodo qabla dukhuul intaan la aqalgelin isagana maharkii wuu waajibayaa. maharkii waajib buu noqonayaa. mahrulmathalka haddaynu fiirinno asagane mahrulmathalka wuxuu waajibayaa ninka markuu naagtii uu guursado maharna uusan sheegin haddii uu dukhuulo waxaa ku waajibaya wax la yidhaha mahrulmithli ama haddii naagtii uu ka dhinto. mas'alada labaad ama xaaladda labaad, masalan ninkii wuxuu magacaabay mahar xaaraan ah, maharkiiuba wuxuu uga dhigayba khamro ama shay aan la garanaynuu mahar uga dhigay, ama wuxuusan awood u lahayn oo uusan dhiibi karin oo gacanta uusan ku hayn ayuu mahar uga dhigay. shay asaga booli looga haysto oo si xooga looga haysto ayuu gabadhii mahar uga dhigay, mana soo dhacso kariyo. mahrulmathal baa marka laga rabaa oo gabadhaa haweenka la mida waxyaabaha lagu guuriyo ayaa ku waajibaya ninka. waxaa jira marka maharku maruu bar waajibayo, hadda axwaasha hadda aynu soo sheegnay maharkiioo idilaa waajibayo. maharkii baa mar la kala barayaa. waa xaaladahee haweenaydii haddii la furo iyadoo aan lala aqalgelin waxay yeelanaysaa maharka barkiisa yeelanaysaa. haddii mahar loo magacaabay ee wax la magacaabay oo lagu heshiiyey ay jireen bar bay yeelanaysaa. masalan haddii $100 lagu xiray, haddii haweenayda la furo iyadoo aan lala aqalgelin boqolkii barkiis bay yeelanaysaa 50, laakiin haddii laga geeriyoodo boqolkii oo dhan ay yeelanaysaa. geerida ma kala barayso maharka, laakiin dalaaqa maharka wuu kala barayaa haddii gabadha aan lala aqalgelin. waxaa jira marka xaalado ayagana ridi kara maharka. haweenaydii maharkii ay lahayd baa ka baaba'ayo. axwaashaasna haddaynu fiirinno, ugu horrayn haweenayda haddii ay iyada iska cafiso maharkii ay lahayd ama ay ninkeedii u hibayso oo ay tiraa adigaan ku siiyey, maharkii wuu dhacayaa. waa xaqeeda. haddii ay cafiso iyadaa yacnii khiyaar u leh, maharkii ninkii wuu ka dhacayaa. sidoo kale haweenayda haddii ninkeeda ay disho oo si kasa ay u disho, maharkii wuu ka dhacayaa. iyadana maharkii ay yeelan lahayd wuu ka dhacayaa. waxaa kaloo jira wax la yidhaahdo xukmu ziyaadati aw innaqsi min almahri, yacnii xukun maharka in yacni la siyaadiyo ama maharkii in wax laga dhimo. labada qof oo lamaanaha ah haddii ay ku heshiiyaan markuu guurka dhaco kadib maharkii in wax lagu daro way ansaxaysaa. wixii lagu kordhiyey oo ay raalli ku yihiin oo ay ku heshiiyeen gabadhii way yeelanaysaa. sidoo kale gabadha haddii iyadoo raalliya maharkii ay sheegtay qayb ka mida ay ka tagto, sidoo kale maharkii wuu nuqsaani karaahoo sawjkii waxaa laga rabaa intii gabadha ay dalbatay oo kaliya. waxaa jira haddane shuruud la fiidhinayo oo maharka loo fiidhinayo. maharka waxaa loo shardiyaa 3 shardi. shardiga koowaad wuxuu yahay an yakuuna mimaa yajuusu tamallukuhu wa baycuhu, maharku inuu yahay wax yacni la milkin karo oo la iibin karo inuu yahay. haddii gabadhii mahar looga dhigo kartoon daasado fara badan ama gasacado fara badan oo qamraa ay ku jiraan, haddii mahar looga dhigo yacni khamradii beeceeda ma ansaxayo, maharna lagama dhigi karo. waxaa la rabaa marka wax la hanan karo oo yacni beec ahaan u ansixi karo in laga dhigo maharka. waa shardiga koowaad. shardiga labaadna maharku inuu yahay macluum, wax la og yahay. waxbaan ku siinayaa haddii uu yidhaahdo aan la carifin oo aan la magacaabin ma ansaxayo maharkii. waxaa loo baahan yahay qadarka in la magacaabo inta uu gabadhaa siinayo. waxaa kaloo shardiya maharka uu magacaabayo inuu qaadir ku yahay gabadha markay dalbato inuu dhiibi karo. tusaale ahaan haddii qofkan laga haysto
neef geelahoo booli looga haysto xoog looga haysto buu gabadhii mahar uga dhigay. gabadhii marka waxay tidhi maharkii baan rabaa, neefkii geelahayna sooma qaado kariyo ninbaa xoog uga haysto, maharkaas ma ansaxayo. maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay wuxuu maharka dhigaya inay yihiin wuxuu awood u leeyahay inuu sallimi karo. waqtigee marka maharka la dhiibayaa? waqtu dafci sadaaq. goormee ninka laga rabaa inuu maharka dhiibo? waxaa sunno ah markii shareecada la fiiriyo ninka inuu maharka dhiibo caqadka markuu dhaco, laakiin hadba waxaa la fiirinayaa inta badan curfiga sida loo isticmaalo. curfiga hadduu uu yahay gabadhu in yacnii loo hormariyo maharkeeda, ama maharkii qayb ka mida loo hormariyo, ama maharkiiba dib loo dhigo, curfigaa lala soconayaa, caadada dadka ay ku dhaqmaan. waxaana fiican oo sunno ah haweenayda maharkeeda qayb ka mida in la siiyo. maxaa yeelay nebiyullaahi aadam calayhi salaam markii uu ilaahay ka dalbaday subxaanahu wa tacaala ummunaa xawaa inuu ku sawjeeyo uu ku daro, waxaa la yidhi maharkeeda la imaad. maxaa maharkeedaa buu yidhi markaasaa waxaa la yidhi maharkeedu waa yacnii inaad tidhaahdo 100 jeer laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullaahi, inaad la timaado kelimaddaa ayaa maharkeeda ah baa la yidhi. 70 jeer buu la yimid marka. riwaayadaha qaarna waxay sheegayaan 50 jeer buu la yimid. markaasaa la yidhi waa muqadamadaadiioo maharkii qaybtii hore baad dhiibtay, qaybta kalena waa lagaa rabaaha la yidhi. iyadoo marka taa looga daysanayo nebi aadam calayhi salaam, waxaa fiican haweenayda maharka la siinayo in qayb loo hormariyo, qaybna dib loogu dhigo. taa ayaa fiican. marka ninka waxaa loo sunneeyaa haddiiba caqadka uu dhaco inuu gabadhii maharkeeda u hormariyo, waa iska sunno. haddii ay dalbato gabadha iyadoo waaga aan lala aqalgelin, iyadana waajibay noqonaysaa in gabadhii maharkeeda la siiyo. maharkii marka yaa gacanta ku dhigayo? maharka cidda qaadanayso waa ayo. haweenaydu haddii ay tahay almar'a arashiida, haweenay caaqilad ah oo aan waalnayn, baaliqad ahoo qaangaar ah, rashiida ahoo aan maxjuuru calayha aan ahayn. rashiida ah waxaan ula jeednaa mid aan safiiha ahayn oo arrinteedaba aan la maamulayn. hadday safiiha tahay ama ay majnuuno tahay ama qaangaar aysan ahayn, weligeeda baa u qaadaya maharka. laakiin haweenayda intaas haddii ay kulansato oo ay qaangaar tahay, caaqilad ay tahay, rashiiddo ay tahay, maharkeeda iyadaa gacanta ku dhigayso. marka qaabkaas baa la fiirinayaa xagga yacnii maharka. waxaan u gudbaynaa marka waxa la yidhaahdo waliimatul cursi. waliimatul cursi xafladday loo dhigayo arooska. waliimada horta waxaa la yidhaahdaa dacaamul cursi liijtimaaci zawjayni khaasa. raashinka loo samaynayo arooska, xafladda loo dhigayo arooskaas, munaasabadda arooska darteed raashinka loo samaynayo ayaa waliimo la yidhaahdaa, oo labada zawjo ama labada lamaano laysugu keenayo. taasaa waliimo la yidhaahdaa. marka waliimadaas markii la fiiriyo xukum ahaan, haddii lagugu yeero oo lagu yidhaahdo xafladda arooska ka soo qaybgal, inaad ajiibtood oggolaato waajib bay noqonaysaa haddii cudur uusan jirin. acdaarta maxaa ka mida marka? cudurka waxaa ka mida meeshii in uu munkar yaallo. haddii meeshii lagaaga yeeray uu munkar yaallo, imaashadaadana uusan munkarka ku baaba'ayn, yacnii inaad tagto waajib ma ah. laakiin qofka hadduu yimaado munkarkii hadduu baaba'ayo, inuu taga waajibay noqonaysaa. maalan shiikh laga heebaysanayo haddii uu yahay, ama qof jaah u saaxiibahoo sharaf leh, haddii uu tago munkarka la joojinayo, markaas inuu taga waajibay noqonaysaa. waxaa kaloo shardiya markii lagu leeyahay inaad xafladda arooska ka qayb gasho waa waajib, wicitaanka inaan lagu gaaryeelayn dadka tanaadka ah. wicitaanku inuu yahay wicitaan furan oo aan u kala reebanayn dadka saboolka ah iyo dadka tanaadka ah. adiga waxaa la fiiriyaa shuruud fara badan oo waajibkaa dusha kaa saarayo. haddii macduur aad tahay oo aad xanuunsan tahayne, waajibkuguma aha xafladda lagaaga yeeray inaad aqbasho. sidoo kale haddii qof kaloo horay kugu soo hormaray ay jirto, xaflad aroos uu kaaga yeeray, mid labaadna uu kuu yimaado isla xaflad aroos uu kaaga yeero, kii hore baad aqbalaysaa, kan labaad waad ka cudur daaranaysaa, oo kan labaad waajib kugu naqan maayo. marka asal ahaan waliimatul cursi waxaa u daliila xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam
cabdiraxmaan bin cawf buu arkay asagoo ay ka muuqdaan waxyaabihii astaanta u ahaa qofka markuu guursado. markaasuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, cabdiraxmaan oo ma guursatay? markaasuu yidhi waan guursaday. maxaad meher ahaan u siisay? markaasuu yidhi laftimireed in la eg oo dahab ah baan meher ahaan u siiya buu yidhi. markaasuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam, awlim walow bishaatin, weliimo sameey, xaflad dhig, neef aryaba allah ka dhige. nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa qaar ka mida ayuu markuu guursaday weliimo u sameeyey. qaarkood dacaam kaliya, raashin kaliya buu sameeyey asagoo wax xoolaa aan birayn oo neef aan biraynin. laakiin sida sunnada ah qofka hadduuba heli karo waxaa fiican xafladda arooska inuu xoolo qalo, neef aryaba allah ka dhige. haadaa wabillaahi towfiiq, wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. rabbi ajariya xasanaad ha ka siiya sheekh salaad cantoob xasan oo inoo soo koobayay mowduucina barnaamijka oo ahaa axkaamta meherka iyo xafladda arooska. waxaana rajaynaynaa inaad fahanteen ama aad ka faa'iidaysteen darsigeennii ku saabsanaa mowduuceena barnaamijka. waxaan soo gaarnaa xilligii dhegeystayaasheena ay khadka si toosa usoo geli lahaayeen iyo weliba fariimahooda ku aadan mowduuca barnaamijka. waxaan fiirinaynaa dhegeystaha ugu horeeya ee khadka ay ku jira. halo. asalaamu calaykum. wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaal magacaaga iyo halkaa naga soo wacayso. waa maxamed xasan jawaa degmada waaberi. maxamed kusoo dhawo barnaamijka. waa ku dhowa. haye su-aashaada u gudub. su-aashaada waxaan weydiinaya, hal su-aalan weydiinaya. aha sheekh waxaan weydiinayaa ninka oo meherka ka daahiyo naagteeda, meherka lacala haddaan ka daahiyo oo markii 5 dood 4 dood 6 dood ay dhashaan meherka bixinaya, maxay noqonaysaa? dambi may noqonaysaa? intaas ka hore iyadu haddii weydiisato muxuu noqonayaa intaas waqtigaas oo ka haysta meherka kabacdina uu qusasiin? waa tahay maxamed. aad buu mahadsan yahay maxamed. maharka waqtiga in la dhiibo ay waajib tahay haweeneyda marba haddii lala aqal galo oo la jimaaco, maharkii wuu waajibayaa. sida aan hore u sheegnana gabadha in maharka loo hormariyo waa sunno. qofkii marka gabadhii haddii ay dalbato maharkeeda haddii uu meermeeriyo sawjkii wuu ku dambaabayaa. maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiisku leeyahay, xadiis macnihiisa uu ahaa, ninkii gabar guursada maharna u sheega laakiin niyaddiisu ay tahay inuusan meherkaa siin, qiyaamada waxaa la keenayaa asagoo zaani ah. adduunyada wuxuu ku qabay yacni sawjo bay u ahayd, laakiin qiyaamada asagoo muuqaal yacni zaani ah oo zinaystay wuxuu yeelanayaa marka dembigii qofka zaaniga ah oo kale. sidaa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. idan marka waxaa habboon haweeneyda markay dalbato meherkeeda in la siiyo maadaama uu xaqeeda yahay. ilaahayna wuxuuna amrayaa subxaanahu wa tacaala inaan siino meherkooda, wa aatuuhunna ujuurahunna. gabdhaha haddii yacni ay idinka dalbadaan maharkooda siiya buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala. wallaahu aclam. waa tahay su-aashii uuna soo weydiiyey maxamed oo jooga waa beri. waxaan rajaynaya inuu fahmay. haatanna waxaan fiirinaynaa dhegeystaha ku jira khadka. halo. asalaamu calaykum. wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaal magacaaga iyo halkaa joogta. waa tahay u gudagal barnaamijka su-aashaada. waxay tahay marka xafladda tooska uu dhacayo, waxaan xafladda meesha isugu yimaado dadka waxaan keenay muusik iyo adiga quran iyo balaayo meesha lagu tumo. aankaas xafladda anigu farxada wax dambi ma igu sugan. waa tahay. aad buu u mahadsan yahay maxamed sheekh cumar. xafladda arooska haddii ay ku jirto waxyaabo munkar ah oo aan bannaanayn, munkar waxaa la yidhaahdaa maa yunkiruhu sharcu, wax walbuu sharciga inkirayo. sida hadda uu ka dhawaajiyey in la keeno muusik oo kale, waxyaabo la tumayo, inuu ka qayb galo waa xaaraam qofka haddii meesha munkar uu yaallo. sayidina cumar ibn alkhadaab radia allaahu canhu wuxuu wadan jiray ul uu dadka yacnii ku tarbiyeeyo. markii uu maqlo wax la garaacayo wuxuu dhex geli jiray dadka. haddii uu arka inay aroos yihiin waxa la garaacayana daf ay yihiin, geedka la yidhaha dafka oo aan gurbaanna ahayn, muusigna aan ahayn, wuu ka soo laaban jiray. haddii ammaan iyo yacni la ammaanayo labadii qof oo lamaanaha ahaa iyo reerihii la ammaanayo, dafna la garaacayo wuu iska dhaafi jiray. ama haddii cunug la gudaayo ay tahay munaasabaddaa darteed buu u dhaafi jiray. laakiin meesha haddii munkar uu yaallo qofka inuu ka qayb galo
ma haboono wuuna ku dambaabayaa wallaahu aclam. waxaan rajaynayaa su-aalihii uuna soo weydiiyey maxamed sheekh cumar oo jooga warta nabadda inuu aad u fahmay. haatana waxaan fiirinaynaa dhegeystaha ku jira qadka. halo halo asalaamu calaykum. waalaikum salaam. magacaagii halkaa joogto? waa maxamed oo kusoo laabtani waa beri. aha waxaan weydiinaa oo waqti hore qof la meheriyey oo lacagta kunka shilin qiimo lahayd, macnaha kun shilin camal lagu meheriyey. waa garta. marka lacagtii kunka shilin lagu meheriyey haddana kunka shilin qiimihiisa hadda waa ognaa wuxuu yahay. marka qofkiina wuxuu yidhi meherkii hadda bixinaa kunka shilinaana bixina, qofkaas muxuu noqonaa? kunka shilina waqtigaas waxaa la sheegaya inuu ku qiimo ahaa adugu markii xoolaha xaggooda loo kaco neef geero oo kale. waa tahay. ama $1 oo lacag ah dollar ahaan markii la aado hadda. waa tahay maxamed sheekh aad buu u fahmay su-aashaada uuna kaaga jawaabaya. aad buu mahadsan yahay. arrimahaas way dhacaan oo waa xaalad taagan. maharkii la magacaabay haddii lacagtii la magacaabay ay tahay lacag shaqaynayso, maharkii waa sidii loo magacaabay. laakiin lacagtii haddii ay noqoto lacag yacni dhacday oo aanba shaqaynayn, xilligaas wixii bedel ahaan booskeeda ku jira ayaa lagu bedelayaa maharkii. hadda xaqiiqatan kunka shilin wuu shaqeeyaa sida aan dareemayno, marka qofkii maharkii loo magacaabay ay yeelanaysaa wallaahu aclam. waa tahay su-aashii uuna soo weydiiyey maxamed oo jooga waa beri inuu fahmay ayaan rajaynaynaa. dhegeystayaal lagu magacaabo cali maxamed cali waxa uu leeyahay waxaan doonayaa inaan sheekha weydiiyo su-aal ku saabsan, waxaan doonayaa inaan guursada ayuu leeyahay ama aan arooso gabar ay waalidiinteeda qaar ka mida ay jiraan dalka dibaddiisa, waxayna codsadeen in loo soo duubo xafladda arooska, anna raalli kama ah ayuu leeyahay, marka diintu maxay ka qabtaa ayuu leeyahay. aad buu mahadsan yahay dhegeystahaas. sideedaba markii la dhigayo xaflatul cursi ama waliimatul cursi, xafladda ama munaasabadda ku saabsan arooska, waxaa fiican in si fudud oo yacni qarash badan, dhibaato fara badan, israaf iyo xadgudub aan la galayn in munaasabaddaa loo qabto. haddii ay ka dhalanaysa israaf, hanti fara badan in lagu ciyaaro, waxyaabo badan oo qarash badan la geliyo, israaf bay noqonaysaa, waa xadgudub. nabigana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, guur waxaa ugu khayr badan midka yacni ugu qarash yar. sidaasuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, guur waxaa ugu khayr badan midka ugu qarash yar. idan marka qofkii haddii uusan raalli ka ahayn in dhaqaalo badan uu ku bixiyo, waaba sidii la rabay oo yacni shareecadu ay ogoleed wallaahu aclam. waa tahay. dhegeysta lagu magacaabo cabdicasiis maxamed shuuriye waxa uu leeyahay sheekha waxaan weydiinayaa meherka ma lagu bixin karaa e v c plus waxa loo yaqaan? aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaas. adeegyada soo kordhay ayay ka mid tahay xaqiiqatan, waana shay lacagta laysugu weydaarsado oo tiknolojiya cusub ah. qofkii marka haddii xawilaadaas loogu sameeyo lacagtii, gabadhii in maharkiiba moobeelkeedii loogu shubo, haddiiba ay tahay lacagtu lacag sax ah oo markii la raad raaco ay noqoto lacagta inay ku jirto meesha, way ansaxaysaa wallaahu aclam. waa tahay. dhegeystayaal lagu magacaabo najmo xasan waxay leedahay waxaan sheekha weydiinayaa ninka hadduu xaaskiisa ay kala tagaan kadibna uu diido meherka, maxaa ku waajibaya macnaha xaaska inay samayso oo aysa cafin meherkiina? aad bay umahadsan tahay gabadhaas. waa xuquuq ragga lagu leeyahay inay maharka iska bixiyaan. maharka in la iska bixiyo waa xaq. ilaahayna subxaanahu watacaala amaro badan ayuu qur-aankiisa ku xusay, uu ragga ku amrayo haweenka maharkooda inay siiyaan. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, wa aatuuhunna saduqaatihinna nixla wa aatuuhunna ujuurahun. haweenka yacni maharkooda siiya. qofkii ragga ahaa marka haddii maharka uu dhiibi waayo, waa xaq dushiisa saaran, waa dulmi iyo gardarro uu u geystay yacni haweenaydii. maxaa yeelay manfacadii gabadha uu ka oofsaday oo ah jimaaci iyo galmoodkii uu ku sameeyey waxaa beddel ka ah maharkaas. maharkii hadduu dhiibi waayo marka xaq baa saaran. sida aan hore usoo sheegnana, qofka haddiiba uu niyeysto gabadha maharkeeda inuusan basiin, wuxuu la mid yahay ruux zaani ah qiyaamada markii la tago. marka waxaan kula dardaarmayaa ragga dhaqankaas leh inay aada uga waantoobaan maharka ay yacni haweenka u magacaabeen inay yacni gacanta ka saaraan wallaahu aclam. waa tahay. dhegeysta lagu magacaabo canab maxamed shuuriye oo joogta xaafadda soos waxay leedahay waxaan rabaa sheekha inaan weydiiyo meherkeyga haddii aan sheegto ayay tiri meher aada u fara badan islamarkaana aan dib u cafiya ayay leedahay, anigoo raba oo keliya in la yidhaahdo heblaayo meher badan ayaa lagu nikaaxay ama meher badan ayaa la siiyey macna oo meherkeedii, arrintaas keliya anoo ula jeeda diinta maxay ka qabtaa ayay leedahay. aad bay umahadsan tahay gabadhaas. masalada iyada gabadhu markay doonayso in maharkeeda in
ay dadka maqashiiso baaxadda uu la eg yahay, laakiin ulajeedadeedu ay tahay inaysan ninka culays ku saarin maharka goobta lagu sheegayo mid ka yar ay ku heshiiyaan, laakiin goobtii lagu soo bandhigo mahar baaxad weyn laa ba'sa, wax dhibaataa ma laha. tusaale ahaan gabadhii waxay saygeedii kula soo heshiisay in lagu meheriyo $1,000, hoos ahaanna waxay ugu heshiiyeen maharka in laga dhigo $200. labadii boqoloo ku ansaxayaa, wallaahu aclam. waa tahay dhegeyste lagu magacaabo Ifraax waxay leedahay shiikha waxaan weydiinayaa meherka, tusaale ahaan meherkeenna ma waxaan ku beesgaraynaynaa ayay leedahay xaasaska rasuulka calayhi salaatu wasalaam meherkoodii, mase waxaa noo bannaan inaan kororsano oo wixii macquula aan sheegan karna ayay leedahay. aad bay umahadsan tahay gabadhaas. waxaan ka hadalnay xukmiyan maharka markii la fiiriyo sida habboon. maharka in aad hoos loogu dhigo waa laga habboon yahay, sidoo kale waxaa iyadana laga habboon yahay maharka in sare loo qaado, maxaa yeelay guurka wuxuu ka mid yahay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. haddii maharkii la qaaliyeeyana wuxuu noqonayaa arrintii sunnada ahayd oo sunnadii nabiga ka mid ahayd calayhi salaatu wasalaam inay culays gasho. sayid cumar radiallaahu canhu asigoo la hadlayo haweenka muslimaadka ah wuxuu leeyahay yaan qaali laga dhigin maharka, maxaa yeelay xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo gabdhihii nabiga kama sharaf badnidiin. xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam maharkoodu ma uusan ka badnayn 500 dirham, sidoo kale gabdhaha nabiga sala allahu caleyhi wasalam 480 dirham baa lagu guuriyey. cid ka sharaf badanna ma jirto. idan marka waxa aan ka hadlayno waxay tahay maxaa habboon gabadha in maharku ay ka dhigato dhexdhexaad, inaysan hoos u dhigin korna aysan u qaadin, si sunnadii nabiga loo guto calayhi salaatu wasalaam. kama dhigayno inay waajib tahay wixii gabdhihii nabiga lagu meheriyey ama xaasaskii nabiga mahar looga dhigay ayaa haweenka muslimaadka waajib ku ah, macnaha maaha. waxaa laga hadlayaa sida habboon oo kaliya, gabadha intay doonto waa sheega kartaa, wallaahu aclam. waa tahay sheekh Salaad, meher ma laga dhigi karaa wax ka baxsan markaas ama aan hanti ahayn, tusaale ahaan wax ama lacag ama dahab wixii la mid ah, wax intaasoo dhan wax ka baxsan meher ma laga dhigi karaa? aad baa umahadsan tahay. maharka hantina waa laga dhigi karaa, manfaco macluumaana waa laga dhigi karaa. hanti hadda waynu dareennay oo lacagtii nuucay doonta ha ahaato mahar waa laga dhigi karaa. sidoo kale waxaa mahar laga dhigi karaa gabadhii maalan in qofkii lagula meheriyo inuu qur-aanka qayb ka mida uu baro, qayb qur-aanka ka mida ayaaba lagula meheriyo inuu baro, sidaba nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam. gabar baa nabiga u timid sala allahu calayhi wasalam, markaasay tiri rasuulka ilaahayow naftaydii baan kuu hibeeyey. wuxuuna nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam maanta wax xaajaa oo dan ah haweenka kama lihi. saxaabi nabiga la taagnaa calayhi salaatu wasalaam baa ku yidhi rasuulka ilaahayow aniga igu sawjay oo aniga igu nikaax. markaasuu yidhi maxaad heli kartaa oo mahar ahaan ah? ninkii marka wuxuu ahaa nin faqiirahoo saboolahoo waxba aan haysan. markii dambe waxaa la yidhi hal cindaka shay-un min alqur'aan, ma taqaanaa wax uun qur-aanka ka mida? markaasuu yidhi nacam waan garanayaa, waxaan kugula nikaaxay baa la yidhi wixii aad taqaano qur'aan ah. meeshaa waxaynu ka qaadannay marka manfacada haddii ay macluumo tahay in meher laga dhigi karo. xitaa waxaa mahar laga dhigi karaa qofkii inuu ari raaco. maalan ninbaa gabar guursanayo, maalan waxaa la leeyahay arigan bil raac ama 2 bil raac, waa manfaco marka mahar bay noqonaysaa, wallaahu aclam. waa tahay sheekh Salaad, ka waran haddii gabar ay ku dhacdo arrin musiibo ah, hadda tusaale ahaan sida Soomaaliya ka taagan oo kaleeto, in gabar la kufsado oo kaleeto iyadoo ama aan loo guurin ama ninkii aysa sheekaysan xato ama meel cidla arrin qafaal oo kaleeto ama waxyaabo la mid ah, macna oo aakhirkii sababaysa in gabadhii la kufsado. aad baa umahadsan tahay. haddii gabadha la qasbo oo si qasabay galmood loogu sameeyo, laba baa loo kala qaadayaa. gabadha haddii ay tahay qof garoob ah oo yacni aan bikro ahayn, haddii la xoogo waxaa waajibayo mahrul mithli wax la yidhaahdo. haweenka ayada la mid ah maharka lagu nikaaxo ayaa gabadha la siinaya. gabadhii hadday tahay gabar bikraahoo guur aan soo marin, haddii la kufsado 2 shayaa waajibayo. waxaa waajibayo bikradii laga zuuliyey, gabarnimadii laga zuuliyey qiimihii ay lahayd waa laga qaadayaa ninkaas. sidoo kale maharkiina waa laga qaadayaa. marka qiimaha ay lahayd waxaan ula jeedaa, maalan waxaa la leeyahay tusaale ahaan gabar addoon ah, waa taqdiiriyan gabar addoon ah haddii suuqa la geeyo meeqay joogtaa $1,000.
iyadoo garoobana meeqay joogtaa $800 labadaas boqoloo meesha ku jirto yacni nuqsaanta ah ayuu damaanayaa damaankaasuu bixinayaa maharkiina waa laga rabaa haddii gabadha ay bikro tahay gabadha la kufsaday wallaahu aclam waa tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena islaamkii nolosha waxaa marti inoogu ahaa sheekh salaad cantoob xasan waxaa idiin soo saaray anigoo ah maxamed axmed xalane waa bahdii barnaamijka islaamkii nolosha idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu